waxaa dhacday baa leeyahay maalmaha ka mid ah afar nin ayaa kacbada banaankeeda wada fariistay afartaa nin waa laba wiil oo Zubayr u dhalay Mus'ab ibn Urwa iyo Abdulmalik ibn Marwan iyo Abdullah ibn Umar afartooda wada fariistay waa dhalinyaro waxay dhamaan baashaalayna meel fariistanayaan shaahba la cabaya ama wax beebsi la cabaya waa la sheekeynaya markaasay sheekeysteen markaas waxa la yiri nimayaha maanta nin kasto oo naga mid ah wuxuu raba inuu noqdo ha tamaniyo maxaad noqon lahayd maxaad jeclaan lahayd inaad noqotid waxa loo hormariyay Mus'ab ibn Zubayr waxa leeyahay maxaad jeclaan lahayd inaad noqotid hadii lagu dhaw maanta waxa aad jeceshahay baa lagu siinaya maxaad jeclaan lahayd ka fakar macallin baa maana glass dhiganayna jaamaca islaamiya musu'aalna weydiiyay wuxuu yiri maanta hadaan tigid idin qaybiyo oo qof kasta aan dhoo xageed jeclaan lahayd in lagu geeyo adduunka maxaad dhihi lahaydeen wallahi wiil Soomaali ah oo jaamaca islaamiya dhigta yaa farta taagan si Hollywood ka Mareykanka in la geeyo maanta ani Hollywood igu horeysay inay bahal tahay iyo inay tahay baabuur iyo inay tahay guri ma kala garanayn Hollywood ka in la geeyo waan muslim dhalinyaro oo jaamacad dhiganahay marka hadii loo dhaw tamani maanta waxa tamanin lahayd iimaankaaga ka turjumaysa wuxuu yiri marka Mus'ab ibn Zubayr aniga waxaan tamanin lahaa in Iraq aan mas'uul waali ka noqdo governorka wadanka Iraq inaan noqdo waa kow inaan guursado Sakiinah ibn Hussein gabar la yiraahdo aad u qurux badneed Sakiinah inaan guursado iyo Aatika bint Talha ibn Ubaydillah inaan ku darsado labada gabdhood oo khatarta ah iyo madaxtinimo inaan isla helo wuu noqday baa leeyahay labada gabdhoodna wuu guursaday waaliga Iraaqna wuu noqday markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ana inda husni dhanni abdi bi wa alayri falyadhunna bi ma shaa anu adoonkaygu wuxuu ii maleeyay baan ahay hamigaaga waxa uu yahay Allah ku siinaya kii ku xigay baa leeyahay hadal عبد الملك بن مروان سي وانا اتمنى الخلافه انا waxaan jeclaan lahaa khilaafada muslimiinta inaan qabto kii hore uu ka sareeyo agow kii hore Iraaq uu yiri ani muslimiinta dhan buu yiri wuu noqday Soomaa amiir muuminiin buu ahaa wuu noqday kii saddexaad baa leeyahay Urwa ibn Zubayr si اتمنى ان اكون فقيها وان يحمل الناس عني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انا waxaan tamaninayaa inaan noqon lahaa faqih dadku xadiidka nabiga ay iga bartaan wuu noqday فقهاء وحكمها أمدان وعلمك بدأوا كمدها عبد الله بن عمر أياه حال يري أذيك التمني أذيك أنا ناشي ويلي ويركع ما حد جعلان لهيد عمر بن الخطاب بعد علي النبي يجيب الله كري صلى الله عليه وسلم رجع وكد وياه فيري بقسوه حيري وأنا أما أنا فأتمنى الجنة أنا الجنة أم بتمنين يا مانت صدق حدين النور بوحي سووها لسماه أسجن وهلا بإذن الله تعالى وهلا وحرب أخي هدف كاجو إنه وين يحي بالربع وحوين إن هذيك سنة ومعي هدف كاجو وحد وقتها قفك بني آدم كا حدوثا نرشة هدف يقرشك كلاين للمجارو قفك بني آدم وحوبة هي إنه ليه هي ميشن يفيشن إنه ليه إن هذا الرسالة لا هي هي رؤية نرشة كسابسة هذا نرشة هذا ميشن لهين أو مسج هذا وذين هذا فيشن لهين أو هذا ميل التارجت يميل جاريس أين يجري ولا ميل ما جاريس